aadan inaan ka iraahdo ayay ka fursan weyday mawduuca maanta aan ka hadlayo wuxuu khuseeyaa oo ku saabsan yahay guud ahaan isbeddelka ka dhacay Ethiopia gaar ahaanna xaaladahan ka soo cusboonaaday ee kacdoonka ee ka socda gudaha Ogaadeniya marka waxaan jeclahay inaan dhowr qodob aan kaga hadlo anoo soo koobaya intii karaankayga qodobka koobaad waxaan kaga hadli doonaa haddii la yiraahdo kacdoonka gudaha Ogaadeniya ka socda buuqa badan iyo aragtiyaha kala duwan dhaliyay guud ahaan beelaha Soomaaliyeed ee dhulka ku nool ka kala imaanaya reaction-ka la xiriira isbeddelka guud Ethiopia ka dhacay daba socda la xiriira qodob baan jeclahay inaan kaga hadlo waliba aan ku dheeraado oo aad u faahfaahiyo oo si saraaxa oo aan munaafaqad iyo mu'aamarad ku jirin aan uga hadlo ayaan jeclahay iyo mujaamilatoona waa qodob aad iyo aad runtii aan u jeclahay qodobka labaadna waxaan jeclahay inaan kaga hadlo ururada muxuu ahaa gobolka horeyna uga soo jiray mar dhaxana ka baaba'ay haddana ku soo laba kor cusboonaaday oo qadiyadan isku dayay inay sii muujiyaan ama ay ceeriyaamo ku furaan rajooyinka iyo waxyaalaha soo cusboonaadayna waan jeclahay inaan kaga hadlo qodobka saddexaadna waxaan kaga hadlayaa ururka ONLF oo aan jeclahay inaan tala bixinno iyo aan ugu jeediyo khuseeya waaqiciga hadda taagan khuseeya inaan hawada u mariyo qodobka u dambeeyana waxaan jeclahay inaan kaga hadlo maamulka jigjiga ka jira ee sii dhimanaya inaan isagana aan kelmad ka iraahdo ayaan jeclahay haddaan ku horeeyo qodobka koobaad waa isbeddelka Ethiopia ka dhacay shucuubta ku nool Ethiopia marka la kala qaado saddexda qowmiyadood ee ugu faraha badan bilowgii u horeysayba markii uu bilowday EPRDF ay timid bilowgiiba waxaa ka dhacay hardan iyo dagaal baa ka dhacay dagaalka koobaad wuxuu ahaa qowmiyadda Soomaalida oo ay hormuud ka ahayd jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ONLF ay xilliga iyada ahayd midii dibadda ka timid isbeddelkaas la socotay inkastoo aynan EPRDF iyo xulufadii markaa xukunka qabsatay ayna si toos ah qayb uga ahayd qowmiyadda labaadna waxay ahayd qowmiyadda Oromada oo naftigeedu ahayd laba garab oo garabka asal ahaan soo jiray oo ONLF-ta la yiraahdo iyo garabka EPRDF-ta qayb ka ahaa oo ayagana hardan uu ka dhaxdhashay qowmiyadda saddexaadna waxay ahayd qowmiyadda Axmaarada oo iyadu qowmiyadda cusub ee Tigreeg ahayd yimid meesha soo galay kula jirtay u arkayeen threat ama qatar ku wajahanay yihiin ay Tigreeg u arkayeen oo ay dagaal toosa aqoonyahankoodii iyo waxkalkoodii ay ku qaadeen inkastoo ay lahaayeen qayb ka tirsan EPRDF dhanka Soomaalida ururka TPLF markii uu xukunka qabsaday iyaga iyo ONLF oo markaa hadafka ama hanka ku jiray iyo tabartoodu ay ahaayeen kaaf iyo kala dheeri yacni hanka ku jiray iyo challenge-ga taxaddiga ay la sameeyeen EPRDF ay la sameeyeen gaar ahaan TPLF ay la galeen iyo awoodda ay lahaayeen oo aad u yaray Tigreegu waxay adeegsadeen waxa la yiraahdo qayb iyo xukun si ay muxuu ahaa tayadooda ay u yareeyaan waxay abaabuleen dhammaan beelihii Soomaaliyeed ee dhulkaas Soomaalida galbeed ku wada noolaa ayay waxay u sameeyeen 15 urur oo aad moodo haddana 7 sano kadib inay mar labaad sidii soo waxaysmayaan 15 urur oo loo mideeyay la dagaalanka muxuu ahaa dadka ayaga ee Soomaaliyeed la dagaalankoodii wixigooda loo mideeyay ayay ahaayeen taas waxay dhashay in la sameeyo wax la yiraahdo Lego in la sameeyo 7 sano oo xasuuq shacaba ayaa socday 7 sano kadibna waxaan arkaynaa markii hadda isbeddelkaas uu dhacay inay soo baxeen magacyo badan oo dulmidiin la baxay oo maxay la baxay dulmiga iyo tacaddiga iyo wixiga dhulka la soo mariyay ee 12 kala soo lahaa ee marba marxalad soo mariyay ilay iyo xulufadiisu kooxdii ugu dambeysay ee dadka iyo dalka lagu xasuuqayay ayay ahaayeen waxa loo sameeyayna beelaha Soomaaliyeed ee dhulka dega dadka qaarkiin waxa ay iyagu beesha ugu tilmaamaan beesha Ogaadeen la yiraahdo baa loo sameeyay ilay iyo liyo boolis la dagaalankiisa iyo xasuuqiisa wixii loo sameeyay kuwaan bay ahaayeen saa darteed xaaladaha kala duwan ee soo maray ma ahayn dulmigiisu marka ma aha wax 2017 ama 2018 wax bilowday dulmiga halka ka socda walaalayaal ma ahayn taa marka waxaan leeyahay walaaladaas Soomaaliyeed ee dhulka ku nool ee moodid hadda inay buunka weyn afuufayaan oo ay sugila ay yihiin fursadaas soo yagleelantay sidii mar labaad aysan tafaraaruq inoogu dhici lahayn ee ay dadka halka ku wada nool ciday doonaan Soomaaliya ka ahaadaan
ayagoo oo wada jira inay fursadda ka wada faa'iidaystaan oo horta cagaar dhulka u dhigaan waxaa la yidhi dad waxaa ugu bakhaylsan hal foofte caaraheed ninkuu diiday hashu way isnuugi kartaa libax baa bedeli kara nirtii oo dhurwaa ka cuni karaa marka war hasha caawa soo dheelmanaysa aan kula maalo ila maali maysid iyo hasha caawa maanta yacni dadkaas ugu bakhaylsan baa la yidhi waxaa weeye ilayna meeshii kama tegin cid ka duwan oo kalena ma imanin wax isbedel oo Ethiopia ka yimidna ma jiro xaaladdu halkeedii bay taagan tahay waxa soo cusboonaaday kaliya waa ifafaalaha yarka ee soo cusboonaaday inaynan sida roobku markuu soo horo ceeriyaanta ku kacda inaydan ku kicin hadalka aan walaal idin jeedinaya alla wuxuu igu ogyahay wax dan iyo interest ah oo shakhsi ahaaneed oo dadka halkaa degan iyo dhulka halkaa degan midna aan kale ahayn inaysan jirin oo inaan ka ahayn jiritaankooda iyo horumarkooda iyo wanaagooda wixii aan ka ahayn marka waxaan leeyahay dadkaas Soomaaliyeed inaad arrintaas aad wixiga u dhigtaan waxaan social media ka arkayay dad badan oo khiyaara rag iyo dumar bale oo ku halqabsanaya beelaha halkaa dega ee Soomaaliyeed beel kamid oo ah beesha ogaadeen oo ay leeyihiin beesha ogaadeen 10% bay ka tahay iyo 5% bay ka tahay war hadday doonto 1% bay ka yihiin taas macna ma samaynayso laakiin waxaan walaalada Soomaaliyeed u sheegaya intaynu xasuusanahay xukuumadihii dhulkaas soo maray ka soo bilow Hayle Selassie kusoo xiji Mengiste Hayle Mariam kusoo xiji Malisi u dambeeyay la dagaalameynay dhamaantood qabiilka Soomaalidu ay carabka ku adkaynayso ogaadeen kale dhulka dega inta ay dhulka ka degan yihiin xukuumadaha aan idin soo tiriyay dhamaantood way u ogolaayeen wixii ugu diidi kartana idinkuma jirto Hayle Selassie uu ogolaayay intuu kala maray ayuu jigjiga iyo wixii la halmaalaa intii la halmaashana ka dhigay maamul gaar u sameeyay qabri bayax wixii ka rogan ee koonfurka xigana iyo galbeed inta kaga beeganna waxa weeye uu sameeyay maamul gaar oo la yiraahdo muxuu ahaa caasimad u tahay qabri daar Mengiste Hayle Mariam ogaadeen raasgeys buu sameeyay xuduudiisu ay ku eg tahay gobolka Jarar iyo City halka iska galaan ku eg oo caasimadu goday u tahay ayuu u sameeyay Bashir Sheikh Abdiina Cagoolana ay madaxweynaha ku xigeen iskaga ahaayeen Malise Zanawina inta rabtaan waan idin ogolahay qaata intaan idin rabinay rabtana ii daaya bay idin isla hortaagnaatay waxaan inta u qeylinayna shacabka Soomaaliyeed dhulka degan ciday doonaan ahaadeen afti laga qaado oo nin walba aayihiisa meeshuu jecel yahay uu ka tashado ayaa inta dadku xarbinayeen waxaan ku tala bixin lahaa dhammaan beelaha Soomaaliyeed ee dhulka degan aftintaaba soo socota ninkii Oromiya ku biirina way u furan tahay nin baa laga sheegay nin baa la kari waayo yiri waa cirkan soo dumin nin baa bariyay war inaad cirka hadaa ugu soo dumisid dhulku inala geliyo waynu dhammaan u kaadibu waa la kari waa dhaxay intuu qabsado meeshaad ka gasho ayaan ka geliyay cirka soo dumi haddii marka ay wayba soo socotaa kii Oromiya ku biirina way u soo socotaa kii Anfar ku biirina way u soo socotaa kii muxuu ahaa xuduud kala sheegana way u soo socotaa waxa ila quman shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaya inay arrinta cagaha u dhigaan oo muxuu ahaa goor laga hadlo calan baa bedeli iyo magac baa bedeli iyo waxaas hadda marxalad laga hadlo maba joogtaba waxa weeye nin baa laga sheegay wiishu qaski meel laba tigi waxa weeye ninkii dulmi ka dagaalamaya wax isbedelay in practice adisaba wax way iska bedeleen laakiin in practice wax isbedelay male ciidamadii federaalka Ethiopia sidii bay u joogan inay sidii u joogaan kacdoonka shucuubtu markay sameeyeen ma inaan kicin wada cowards bay dahaydeen fulayaal oo qof banaanka intuu u soo baxo hal dhagax tuuray wala inaga waayay waxa weeye 720 sano ee la dagaalamay ee xabadu dhacaysay xasuuq u dhacay ee meedka meesha ugu shishaysa Soomaali ilaa meesha ugu sokaysa la jiidahay ee kabta afka laga wada gelinayay ragga ee gabdhuhu asayda wada qaateen ee xabsiyada la iskugu magac daray walaalayaal intaas oo markay dhacaysay waxa weeye garta islaam baynu u nahay ma aydan joogin marka waxa weeye aabo ninka yariga celiyo ninka weyn ugu siidaa kan Soomaaliga ee ku afka ee kugu wixiga ee kugu dubka ee inta aad xagxaganaysa ee shisheeyaha ku sii jeeda ayaad u wixi badan tahay ururka Itixaad hadal baan leh ururka Itixaad shacabka Soomaaliyeed iyagoo xaaladda ku jira Ilaahay u qeexan tahay oo muxuu ahaa Ethiopia la isayo ayaa carrada timaadeen tara la idin siiyay war dadkana wax bara qubuuraha kor fadhiya qubuuraha caabudahaya ee jahliga ka saaro wax bara buu qorigana la ordaysaan ee meesha laga soo dhibay aanan garanaynin daaya waa la idinku kari waay markii dagaalkii iyo xabadu ay bilaabatayna shacabka inaad laysaan waxaan ahayn waad keeni weydeen markay xaaladdu idinku sii adkaatayna Ethiopia bad isu dhiibteen macna maanta aad anna wayka u soo tiraahdaan wax meesha yaala ma wax meel idin ka bannaan oo shacabka Soomaaliyeed ku soo dhaweynayaan ma jirto marka qodobka walaalada Soomaaliyeed
waxaan idinku baaqayaa nin tuulada uu degan yahay cid tuulo kale ka soo guurtay ay ugu imaanayso ma ay jirto shacabka Soomaaliyeed cadaalad baa deeqda nabad baa deeqda walaaltinimo baa deeqda ninkii dad nacay oo qabiil gaar ah iyo dad gaar ah nacay meeshii u macaan ee kale wuu heli karaa waxa weeye shacabkan Soomaaliyeed hadda lagu xasuuqayo Oromiya lagu laynayo waxa weeyaan Cabdi Jibriil buu ahaa ninkii isagoo u haysta qabiilooyinka Soomaaliyeed qabiil kamid ah inay interest u tahay dhulka difaaciisa ayaa aftin ka qaaday dadka kala dhaca 180 degmo oo dadka baangada lala dhacaya ayuu Oromiya raaciyay haddaad arrintaa ku sii wadaan waxa weeye haddii dadka Soomaaliyeed ee jigjiga degan ee dadka Shiniile degan mowqifkooda waan aragnay dadka jigjiga degan iyo kuwa Liibaan degan iyo kuwa muxuu ahaa xuduudada afmeerka xagga Oromiya xiga hadday u macaan tahay Oromo walaalo u tahay way imaanaysaa horaaba loogu codeeyay kuwana waa la codeeyay intii weli dhulka Soomaaliyeed ka tirsan codbixintu way soo socotaa Oromiya ku beer cidna idinka hortaagan male waxa weeye dadku walaalo u joogayaan isdeynadu waxaad moodeen inay anfacay waxaan muxuu ahaa qodob ururadan kale taada waxaan arkay sidoo kale Saalixudiin oo hadlaya waxa weeye ruuxu inuu iska aamuso ayaa u roon waxaan inta hadaan qodobkaas aan kaga gudbay waxaan u soo gudbay ONLF baan u soo gudbay ONLF waxa weeye dadkan dhulkan dib badan oo sabab u ahaydeen baa soo maray dib aad u fara badan oo sabab u ahaydeen ayaa soo maray gooran xornimo la raadin ayaa xornimo raadiseen haddii wax kasta oo jab ah la soo maray ay fursadii maanta soo baxdeen weli waxaad moodaa inaad ku jirtaan agajiid iyo muxuu ahaa dawladaad ku jirtaan dadka inaad dabka ka daysaan iyo inaad hogaamin noqotaan kama dhaxayso waxaan idinku baaqayaa laba arrimood labadaba inaad samaysaan ma raba inuu kelib ku dheeraado oo waxaan jeclahay inay dad badan daawadaan oo hadhow dadku ayna ku caajisin fursadda aad haysataan waxa weeye kow inaad ku qanacdaan oo ogaataan dhulkan Soomaaliyeed iyo dadkan Soomaaliyeed meel ay idinku codeeyeen oo inaad iyaga idinku aad matashaan aad ugu codeyseen ma jirto hase yeeshee waxaan anigu qalbigaygu wuxuu aaminsan yahay in qadiyadda aad ku taagantiin ay tahay qadiyad xaq ah inay tahay ayaan aaminsanahay oo aydan Soomaali ku mashquulin 27 sano isku mashquulsanayd waxaan ogahay 27 sano inaad dhiig badan iyo wixii badan u daadiseen welina ay qadiyadii socoto hase ahaatee fursaduhu iyo wax yani traditional idin lagu xidhnaanaya maaha waxaan idinku baaqayaa mar haddii aftin muxuu ahaa Ethiopia baarlamaankeedu uu idinka qaaday xasaradii waxaad sugtaan kala dhan waa khalad in gudaha la galo oo dhulka iyo dadka la abaabulo oo gacanta lagu dhigo oo muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed ee midnimada u baahi qaba aad shir u qabataan oo isu keentaan oo